Today it's not my day. maanta ma aha maalintayda ee waa maalinteena innaga oo dhan ayaa arrintan suuro gelinay waxaan rabaa inaan idin sheego in si aad u faraxsanahay maanta maxaa yeelay maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulkan aad ayay u fiican yihiin waxa ay sahleen qaabka waxbaridda iyaga oo ka dhigay iskuulkan mid aad u tayo badan intii uu socday tababarkan waxaan ku barannay waxyaabo badan oo ku saabsan nolosha macallimiinta waxbarta ardayda aragga iminka waxaan aragnay guusha iyo natiijada tababarka waad ku mahadsantihiin inaad i barteen casharka ah in la iskula shaqeeyo sida hal qoys oo kale. Thank you for teaching me that lesson of working as a family. waxaa sharaf iyo farxad noo ah maanta inuu Allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyo tababarkii taariikhiga ahaa aan meesha isugu nimid. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh. tababarkan oo ah tababar sanadla ah sanadkii kastaba haddii ilaah subxaanahu wa tacaala noo fududeeyo aan mar isugu nimaadno waxaa tababarkan taabageliya maalgeliya shirkadda Hormuud oo soo marinaysa Hormuud Salaam Foundation. sidaa wada ogtihiin Hormuud Salaam Foundation waxay kafaalo qaaday iskuulkan aan fadhino gabi ahaan waxay bixisaa dhammaan qarashaadka ku baxa marka oo aan de runtii wax la soo koobi kara aan ahayn. dhanka kale tababarkan ujeedooyinku noolaha waxay ahayd kow in la helo dad xirfad iyo aqoon u leh mashiinkan teebka Parking Sprailka furfuri kara xirxiri kara maxaa yeelay waxaan ku wadnay waxay ahayd yani aqoon iskaa ah qofku inuu YouTube ka fiiriyo qof aan tababar u helin laakiin maanta meeqa qof aa furfuri karta oo xirxiri karta oo macallimiinta ka mid ah waxaan filayaa la iskuma soo gaaray intaasi waa guul. waxaa farxad noo ah sidaas la mid ah in macallinku uu bartay habka uu ugu tababaro ardayga indhaha la iyo midka aragtidiisu gaaban tahay kombiyuutarka waxay ahayd hadaf ka mid ah hadafadeena. alxamdulillah maanta aqoontii hore lahaydeen inay kor u kacday intii aad taqiineen inay hor u sii kacday taasna iyadana guul kale waa. waxaa guul taa la mid ah fasalka sida loo maamulo gaar ahaan sida loola dhaqmo arday baahidaa qaba inaan ku guuleysano iyadana alxamdulillah. runtii guulahaas tirada badan Allah subxaanahu wa tacaala ayaa suurtageliyey qof kasta oo gacan ka qaatayna waxaan leenahay aad u mahadsantihiin.